وينك آديات باندي السلام dagaalkii 7 sano Facebook maanta uunbu cadaaday ilaa xalay horta waxaan u sheegayaa nabada yar Sacad Muuse ee fataku macaashka waxaan idin sheegayaa ma yahay Facebook laga xiri karo nin qiimeeyo hal ciwaan anigu ma yihi 70 iyo 100 baan leeyahay Facebook waa dawaqi doontaana waxa soo doontaa Facebook-kan dadka ku jira uma wada isaga waxaan u ciwaanay saddex baa report iga bixiseen dadka lacagta ku qaata Facebook ka xirmo cala anu ma lacag ma qaato halkan kan ka soo galay waan iska karbaashayaa wax dambana laydi kulama hari doono idinka ayaa badda soo galay waa u adkaysanaysaa ilmo kuubarow waa u adkaysanaysaa soo dhawaada sii sheer gareeya asxaab badan ha gaadho macaliyaga ha gaadho sii sheer gareeya Saki Marshal يقر حجس سيشار قريه شير انتينا سوق شاو عصبي كاني شير وما ku qabanaysa qaar kale laakiin ka soo galaya oo ciidaasi ka badan yihiin waxaan idin leeyahay ilmaada reer masheer taayir bala bakhayleysa hala bakhaylna baash ilaahay baan ku dhaariyay way dawaqayaan karbaashkooduna waa soconaya facebookna saacad kama maqnaanayo waa boqolaal wali kama soo gali jeegaana diidadii iyo ku dulma diidadii waa wali kama soo gali waxaan leeyahay war dadka hagaagsan ee dhaladkii dahana daba galaano hana la dagaalamaan war dad qoomaluuda oo nijaasa oo ururisa oo ilaahay meel xun ka beeray oo bar ilmo oo faladeeyihiin waxaan ku oo bar darbijiifka yihiin oo bar in jaarsan yihiin oo bar xafaje yihiin oo bar oroma yihiin yaa ayaa maanta ummad iska dhigaya alla ilaahay inteedaan ku sugnay in laga hayaaradka gaaroodi in maanta reer Sheekh Isaaq war jooji waxba deemayna iskaga baxnaayaa meesha bilaayadabadii naga baxadeer dagaal yar yaraysi ma laha adeer wallahi qofka dambe ugu dhaxday sheerka daa waa blog midhan waxaan leeyahay in badan ayaa tunka leedin ku soo sitay in badan baa leedin lahaa reer Sheekh Isaaq baatii in badan baa leedin lahaa islaantii magaado dhimatay baa xabaasheedu ku dhasho ilka leedin ka soo helay ma khiyaaligaas aad run moodeen waxaan leeyahay yaa been baa leedin ku akhriyay waxaad weydba ninkii korshaawdkeeda leh abaalaawayaal dhaleen garxajis iyo arabaa tunkaydu ku soo qaatay idinkoo bilaa isira oo loomooyaana oo bilaa magaadla ah oo bilaa xabuushaa oo cidiba idin dhalin oo balaayo iyo baas idin dhashay ayuu arab iyo garxajis tunkaydu ku soo qaateen markaasay yidhaahaan waa inanka yagii naga yaraa oo magaadaa dhasho xabaashaanu ka soo qodnay xageebay sheekh Ismaaciil Sheekh Isaaq iyo Arab Sheekh Isaaq xageebay ka keenay qalabka ay xabaasha ku arkeen waa leedin asturayay idinkoo leedin asturayo leedin xabaal baa leedin ka helay yaa waxaan leeyahay dhammaan wada sheer gareeya yebi qadaadweyn iyo oromo iyo
balaayo iyo baas ha gaadho waxaan leeyahay waa nasiib in maantana arab iyo garxajis laydinka taag heli waaya hadda waa nimankiinii idinka oo bilaa aabbaa idinsoo qaatay ee aabbaha idiin sameeyey ee macal islaanta idin dhashay ee magaalada idinku kabay ee idiyidhi xabaal baannu idinka soo saarnay oo xabaashaa ku dhalateen idinku yidhi ayaa maanta ku kibraysaan abaallaawayaal dhaleen wallaahi nin waliba haybtiisii noqon horta ninka garac unbuu urursadaa nin aan xalaal ku dhalani nin aan xalaal ku dhalan unbuu urursadaa waa waxa ingiriisku dhalinta kacaanka meesha orfalada xaafaddiina uga dhex dhigay ilaa iminka dadka bilaa ku dhashay ee meher la'aanta ee la tuuro yaa qaata dhammaan waa wada sacad muse dhammaan waa wada sacad muse dhammaan tuugad halkaasay wada galaan waxaan leeyahay reeraha kale hal qof ma qarsan karaan maanta waxaynu ognahay oonu annagu naqaannaa maanta inta qolee tihiin waxna lagu qaldaya maaha sababtaasina ninka arabee macalidinka guursada waa waxaa reerka looga dayriyo shirka arab ma yimaado waayo dad bilaa siidhuu ka guursaday oo aan dhaqanka meel ka soo gelin waxaan leeyahay anuguna nin baannu idiin naqaannaa qoysqoys baannu idiin naqaannaa warma maxbuub baa idinku jirta oo reer shirdoona warma waxaa idinku jirta qaraabo cabdille siciidoo inaaw siciida warma waxaa idinku jirta cabbaaskii ceelka laga helay oo ganacsada carab hayswaalina oo ninka caanaha koostada keenaa warma waxaa idinku jira ciise isaaq baa maqasheen weligii ma ciise isaaq baa idinku jira warma waxaa idinku jira agasaan warma waxaa idinku jira igo ma akaakaa idinku jirta ma layiilaa idinku jirta warma muuse dherioo maanta reer samatar kala badhaa idinku jira oo maanta reer samatar sheegana ayaan darana ma maantuu muuse dheriye reer samatar sheegtay oo maanta qudhacraa maala iyo xarshin halka u dhaxaysa ee la yidhaahdo calaydh reeri wixii degganaan jiray ee muuse dheriye ma maantay wada reer samatar noqdeen ayaan darro warma inaydaan dhalad ahayn baa wallaahiya inaydaan reer sheekh isxaaq ahayn baa wallaahiya asalkiinnuna wuxuu ka yimid asalkiinnu ilmahaa la helay buu ka yimid arab iyo garxajisaleen haddaad dhala tihiin maanta maalin walba fitadiinna laguma xukumeen maxkamadda hargeysa maalin walba 10 ninoo sacad musoo isqaba laguma xukumeen maalin walba 20 hablood oo lisbiyoona layskuma xukumeen ma ummadda kale laga helo futakuma caash maanta waxaa maraysaan raggiinnii in loo soo tumasho taga magaalada hargeysa maanta ragga sacad musa gaalada u soo tumasho tagta ayaan darrada jirta miyaanay ayaan darro ahayn orodoo caddaani fadxiyow soo fadhiiso casarka sidiinnii soo xidha bijaamo soo uunsada caddaani kafeteriya soo fadhiista kolba gaal ha idin soo ag joogsaday laangiruusil cad wataayo shidhka hore shidhka dambe u gala marka laydin soo dubeeyo shilimada laydin soo siiyana arab iyo garxaj isku caaya oo waxaad tidhaan bilaa lacag baad tii beerkaad dhigatood baabuur ku heshay raggii loogu gebiyey idinkay haaya xishood adeer ma jiree meesha iskaga bax aaminaay ka bax meesha ka hor leexayn adeer iyagaa baddeeda gala sacad muse oo facebookyada idinka dhammaan waaye waxay u haystaa nin facebook ka maqaanaye kay xidhaan maahae ka kaloon baan ka soo galaa iyagaa baddayda soo galay yaa adeer gaajoonaya leeda wuu gaajoonaya ninkaad leeda wuu gaajoonaya ilaahay baa waxna siiyo lacag xalaalaan cunaa anagu lacag anagu xalaalaan cunaa waa tan xalaal baan cunaa adeer waa tan xalaal baan cunaa bullshit
beerkaad dhigatood baabuur ku heshay yaa ilmukhaniisiin ilaahay sharaf buu naga dhaliyo arab buu naga dhaliyey oo ilaahay naga dhaliyey oo adeer aan waxaan ku idhi futada dhigan oo aan asoolin ayaannu ka dhalannay oo goba oo waxaan ku idhi bii sheekh isxaaqoo britishu ilaahay naga dhaliyey nagamuu dhalin annaga sacad muuse iyo qoomuluud haddii maxkamadda hargeysa maalin walba 10 ninoo araba la keenayo oo fitadooda foorseel ku taallo maxkamaddu xukumayso wallaahi inaanan nolosheeda kaftaneen laakiin dee inaan meher ku dhalani waa indha adag waa sidaa sacad muuse oo kale waa indha adag tol adeer waxa la yidhaha ma jirowkaadi joog iyagaa baddayda soo galay 3 Facebook bay xalay 500 mid walba 500 sacad muuse report iga bixiyeen hooyadood baan kuwa seewan cadaabayaa weliba ما محط واي نو waxa leeyahay xaadir ma meel baa ku cunaysa naya annagu naagihiina taayo raggiinii baanu aragnay raggiinii baa foorseel ah oo futadu sidaa waa soosha xoolahaan maqli jiray xoolaha reemigu waxay raadaan marka adhigu asolo waxa lagu gartaa futadu sidaa yiraahdaa war bal hargeysa reer ka dhalay fitadeedu feersool ku qoran saalayaga war raggiinii baa loo soo tumasho tagaa raggiinii baa santarka magaalada ka furtay bartilmaameed lagu yaqaano oo cadaan kafeteriya markaasaa rabtaan inaa ila kaftantaan ina maal baa u dambeeyey iyo labadii kale jibriil abakor ee isa soo dacweeyey ee isku soo dacweeyey ninka baa 2 biloodna qabay biilkayagii baanu ka doonaynaa reerka kaliya ee Soomaali lagu arkay waa iyaga kitaab quraana ku maraya nadartu shaahitu haybanaha oo afka sidaa la isku wada qabtay oo leeyahay maxaa tir ku celi markaas uu garsoore 2 bilood buu ninkan qabay waa laba kuwa la qaba haye labadeedanba ninka baa 2 bilood la qabay waa dhidar maal lidaro waa nin wariyo waa reer gariido 6 sano lagu xukumay marka jeelku ku jira ninka habaryoonisa dalmar la yiraahdo xukumay waxa ayaan darrada ka sii weynayay 70 oday oo sacad musaaba inta soo raaceen maxkamadda yimid waxa leeyna dalmarow inaan kayagu macinaamadeedu macid bay dileen maasuuli may markaasuu lacag miyaa lacag bay xadeen oo lagu leeyay markaasuu may markaasii dhahan hadaa maftadooda la leedin maxaa ku haysataan waa 70 oday waa kuma ninka Soomaaliya oo dhan kale maxkamadda yimaada waxa yaa ayo hal xaraamiin aan ahayn annagu ka guursadaanu dayrina hadaanu arabnay ka guursada tirada macalkuma darsano wallaahi isaaqa kale iskaga dhigaan awliyo isaaqa kale iskaga dhigaan british ilaahay baan ku dhaartay inaan kaba guursan waanu dayrinaa ka guursada waayo waa nijaasti sida aygaanu iska faraxalaa 7 jeer sida ayida ma aragtay ayaan 7 jeer iskaga faraxalaa hay wallaahi sida ayida 7 jeer iska faraxalaa waxaan leeyahay nin araba haddii beri in uu maxkamad la keeni lahaa loo dhan haftadiisii iibiyey noloshayada maanaan kaftaneen iyagu laakiin way ku faanaan macallinkooda waynu naqaanaa waa kuu bardee siduu carab laalaadinta u baro warbar reerka iskuulka dhan u furtay ee gayga ah maanta dal islaama ka dhex furtay ee khaniiska adduunka ugu weynaa keenay ee la qadeeyey ee sacabka u tumayey ee awliyada u haystay mar reerkaasaynu maanta leenayno aan tala weydiinayna ilaahay baan ku dhaarshay bal isweydiiya looma qarinayo muunaa kuwan wax loo qariyo maaha waa xaaraan weeyaan kuwani wax loo qariyo maaha yaa fadhiya raggiinii baanu aragnay ka ku qabaa lagu soo dhufta oo lacag tuftada ka ganacsada ku keena kugu biiliya naya ka bax meesha maana wallaahi oo billaahi inaan been ka sheegahay waa kan ina maal lidarjeelka ku jira iyo labada la xidhaba umada ilaahay oo dhanba dhageysanaysa wax shaaraca bay hay maana been sheegaya ku barbaas sacabka u tumayseen imika idin maqashiinaya ku barbaas sacabka ugu tuteen shax war nabi soo taahire moodii waxay ku faraxseen carab laalaadintu barayo gayga
والبحنمدود البحنمدي sheegtaan wax kala maaha waa qaabka carabka loo laadalaadiyo waa qaabka iyo waxaan ku hori ciyaaraha de khatarta weeyaan waxa ma naqaano inagu ilaahay baa naga shartiray maanta inamadoodii yaryara ayaa maanta inta la kaxeeyo iskuulada kuubar ee Mareykan la geynaya balka warrama ilaahay baan ku dhaariyay balka warrama bulaxaar baa lagu rogay reer Axmed sameeyeen ayaa bulaxaar lagu rogay haddaanu garaacnay oor falada sideeda dhexdiina la keeni la oor faladii baa dhexdiina sidiina loo keeni lahaa dhalinta kacaanka sidiina shantii sano mar heer dadka la soo tuuray qaadan lahaa waxaan xusuustaa oo barnaamij ka dhacday 2002 baa nin sheegadiida xaafadan arabka ka guuro konton sano yaalin inan arab u qabay ninkaas adduunyada uu soo maro waxa la yiri ma dhaleys buu ahaa ninkii waa naga guuray horta ninkii wuxuu dhintay 2010 markuu maalintu dhintay un baan ayaa arabku deetay inay saambal ninkii kontonka sanadii ku yaalay idaacad u guuray balgeeridii taga waxaan u tagnay inan tayadii oo afar caruur haysto oo hadda rooro iskuulka ka yimaadeen hooyada haysa wareedha inteedii arab baa isqa jirisay warintu may dhali jirine caruurtan abtina la xagee ka timi show inaad halkan dal la helay dhalinta kacaanka uu ka soo qaatay laba hablood iyo laba wiil imika waa ilma xaajimad labadii hablood iyo labadii wiil dhalinta kacaanka laga soo qaatay inan tayaduna may dhalin balka war waa halkan buu ka soo qaado uu keen والله وبالله والله ودع ورادي inan tayadu ninka waxba ma dheli jirin ninka dhakhtaradii adduunka ka soo qoostay waa maxay caruurtan abtina leh adeer waa albaxnimada arab badubaatina iska aamus la qabsadan baan lagu balka war ilaahay baa ku dhaashay waa dadka noocaas waa inan tayadu waryaare شو هالكرو بان وار لقب سدو بان بدو باتيرو طبيسانه walaalo aaminay ma intii sheegaanimada ku jidinaysa imika waa mid qabaay annaga dadkan idin keenay oo diniri waa magaalada ku jireen oo kaadiya umadaan u sheegnay arabiya garxaysta balaayatunka ku soo qaatay balaayadan tunka ku soo qaadana annagii walaal noo timide wallaahi inaanan weligeena diinahay manimaka shanta boqol ee rag iyo naagaba isku soo kaxaystay dacweeyay anigoon uba jeedin hore soo meedaan weynaan lahawan reerka waa nabadgeliyaan xalay bay igu soo bilaabeen facebookadeeda xidha kan kala xidha kan report ka bixiya siilkii hooyadaaba hadaba xalaalaha futada isku xijiya reeb urbacir qoomaloodii ku dhalay idinka ay soo doontay nacala waalidkii ku yaale facebook la xidhaa 7 baan ka soo galaa anigu 7 baan wallahi ka soo galaa waari nabadgeliyaan maxay idin keenay facebookadeeda inay dacwaysaa 500 saac u sii dacweeyaan report ka bixiyaan soo taa kuma idaan adkaysaneen oo adkaysta hadaba reer sheekh saxaaq baanu idinka dhignay idinkoo garcoo arabiya garxajidii soo heleen markaasaanu idin islaam baa xabaasha la idinka qoday oo islaam baa idin dhashay ummadda ugu sheekaynay been idinku akhrinay yaa khaniisiin ordo oo cadaani wada fadhiista cadaani ordo casarka wada fadhiista gaalada kolba miskiin ha u yeedhato nin arab ah oo ka shaqeey jiray Axmed Faarax la ilaahay hay'adii Yurubiyaanka ayaa loo bedelay laba habeen markuu joogay wuxuu arkay namadii saacad musoo sariir loo dhigto lagu garaacay macal kamarada laga duubayo wallahi warjo xaqiiqdan keenaya xaqiiqdeesu adkaysta baan idhi yoohiyo xeerkiinoo yaallay waad weyso meedaan jabin adkaysta dabeedna waxa dhacday inankii arab dee markuu lagu aggaraacay nimankii reerka ayuu adkaysan waayo oo soo dacweeyey dee waxaa lagu yidhi maxaa fitada sacad muse kaa galay fiftadooda aad la leedahay inankii waa la xidhay waa Axmed Faarax Hargeysa iminka jooga bilayskaba sidii buu iskaga casiray ninkaas ilbaxnimadu waa taa cadaani ragood intay soo sadaan casarka soo fadhiisanayaan cala waalidkood ku yaalka
nin Facebook kaliya ka xidhi karaysaan ma yihiin 7 baan ka soo gelayaa si wada sheer gareeya xabaal baa la idinka soo qodaan idinku sheekayno islaan magaalada la ilaa waa idin dhasho iilka ku dhalateen iilka xagee qalabka lagu eegay xagee laga keenay arabiya garxajis baa soo helay idinka garaceen markaas dadka ugu sheekeen xabaal baan ka soo saarno magaalada xabaal ku dhashay ma qalab baa jira xilliga xabaal lagu eego ingiriiska adii yaqaano or faladii ka dhex sameeyay waraad baan idin salaamaya waan soo wadayaa 100 baan ka soo gelayaa 100